عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروا جنالكيغا أنا ديتا إيسا هدي كمتا تذكري وحنا وحنا دهايا دمانتين ما تنتهين هدي أنا بعصبتها ناقون برشو ناكسن أنا إيسا نيوتريشنستا يا ما له هرسين كشكل دونا وحبرتي سيدا كسو قاري محاكا شقايا everything dhiirigelinayna qof kasta u noqon doonta maxaa dhacay situation badan oo adag ah waxbarashada ka soo maray alxamdulillah qof kasta oo horta arday ah mise shaqada noqota ama nolosha waxa waaye qof kasta ma aragtay dadku uma wada aha in wax walba fudeed iska yihiin maanta markaa barnaamijkeena dhiirigelin waaye waxaan ku doortay inaan barnaamijka maanta duubo social media oo baryahan aad ugu arko dadka inay frustration waxa la dhahaa heesto in maanta dhan qof ooyna ka soo horbaxay qof adduunka maaragtay wuxuu u joogay iyo wuxuu maxaa la dhahay goolkiisa yahay iyo wuxuu sameeyo iyo nolosha dhan ka wareersan tahay qof kasta horta noloshiisa maalin kasta ma fiicnaanayso maalin xuna ku soo mareyso maalin farxad la ku soo mareyso maalin ooynaysa ku soo mareyso waxa uu rajeynayaa qof kasta insha Allah inuu horumar iyo wax walba rajeynayo uu helo oo gaaro goolkiisa maanta markaa barnaamijka dhiirigelinta waxaan rabaa inaan ka hadlo sidee isbedel ku sameyn kartaa sideen u gaari kartaa maanta goal u gaari kartaa ama meel aad rabtid inaad gaartid aad rabtid inaad u gaartid qof wuxuu rabaa waxbarasho uu sameeyaa waxbarashadii kale laga yaabaa inuu is dhaho uu kugu adag tahay uu ka walwalsan yahay qof waxaa laga yaabaa in uu business rabo inuu sameeyo businesskii meel ka bilaabi lahayd qofba maaragtay social media laftirkiisa dirtaan maanta kale dad badana TikTok furnaa YouTube furnaa wuxuu rabaa inuu horumar ka sameeyo uu isbedel sameeyo oo qof magac leh noqdo inuu business ahaan lacag ka sameeyo laakiin haddana waxa ku adag sidee u gaartaa goolkaaga iyo mid ayadana maanta muhiim waxa ugu muhiimsan nolosha horta caafimaadka waaye markay noqoto mentally iyo physically labada dhinacba inuu qofka noqdo qof caafimaad qabo kadib uu sameyn karaa isbedel haddii caafimaadkaaga maaragtay oo fiicneen wayba adagtaa qofka inuu maaragtay isbedel nolosha uu hamigiisa meel waraba uu ka gaaro waxaan ku bilaabeynaa number 1 maanta horta intee taagan tahay adiga rabti isbedel inaad sameysid intee taagan tahay qof noocee ahaa tahay maxaa rabtaa inaad noqotid goolkaaga maxaa waaye intee u socotaa ma hadac bas inta iska qaadatid maaragtay hadaa meesha u socotay aqoonin dhib waaye oo meesha uga degayso ogeen horta ogow number 1 meesha u socotid goolkaaga yahay number 2 weligaaga ha ka fikirin waxyaabo badan dadku waxa arkaa gadaal u celiyo oo aad society-gan ugu badan shalay waxa arkaysaa oo kale waxyaabo faniga dadku waxay soo qaadanayaan oo yaa Soomaaliya saana ahayd dawladda markay jirto saana u qurux badneed saana ahaan jirna maanta dhan maaragtay saana ahaan jirna ma aha hadda seenahay seerabna inaan noqono intee rabnaa inaan gaarno maxaa dhacay muhiim maaha shalay ahayd dadka oo noolaay waqtigaas way dhinteen adduunkan way ka tegeen qaar badan noloshu way isbedeshay adi maxaa marka gadaal maxaa u dhigan tahay hore u soco anaga marka goolkeena waxaa waaye mar walba gadaal ha fiirin hore u soco saa horumar u gaartid muhiimadda waxaa waaye marka maanta noloshaada intee taagantayna fahansan tahay intee u socotaana aad fahansan tahay midda ku xigto waa inaa action sameysaa hore tilaabo ka qaad ha sugin waxaan haddaa sugtid ogow fikirka adiga kugu jiro 100 qof kale ku dhex jira fikirkaas oo maxaa la dhahaa haysto example kale taadi soo qaada gabar saaxiibanahay iyo aniga waxay jirnay waxaa ka fikirnay businesska marka wax walba sa ugu fikirnaysaa u rabnay kan kale design everything waa haysanay laakiin waqtiga iyo meeshana tagnay iyo saa u sameynay wixii waqti u baahnayd waqti isla heli weynay markii dambe in waqtiga u soo diyaar garownay oo isleeyna okay hadda gal hawshii soo fiiriyo wixii saa u rabnay design everything dada sameeyay waxa maaragtay ada action qaadin oo adi hore ka sameynin ogow dad badan oo kugu fikira oo waxaas inay rabaan inay sameeyaan rabaan ajiro
so ayagaa sameynaya jaanisii siisay so dadaal adiga wixii aad ku fikiraysid meesha u socota rabtid inaad gaartid goalkaaga dreamkaaga everything samee ha sugin haddii kale weligeed dream ahaanaysaa waana waxaa dad badan maanta adduunka maaragtay ay horumarna dad uga gaaraan dadna ay weligooda dreamer ahaadaan haddana markaa rabtid maaragtay isbedel inaad sameysid waxyaabaha idan muhiimka ah waxaa waaye dadka inta badan waxay sameeyaan oo kale guriga waxay rabaan meesha iridda soo furi lahaayeen furuuq qaadan lahaayeen maajgareenaayo soo geli lahaayeen tartiib waxay rabaan intay iridda soo jebiyaan inay kusoo galaan mise daaqada kasoo galaan soo xoog iyo orod iyo waxay ku galaan iyo qof kalaa sameeya waxaan ana waa sameynaa taas iyadana waxyaabaha guuldarada keeno oo goolkaaga aa u gaari weysid waayo waa dad badan maanta waa businessya qaldan waxay u galaan dadka intooda badan maanta waa waxaa markaa fiirsada social media oo kale dadka waa iskuwada fikir qofa wuxuu keenaya challenge dadka dhan same challenge wadaan qofa waxaa laga hadlaa dadka dhan waxay ka hadlaan wax ka duwan way adagta dadka inay la imaadaan maxaa dhacay dad oo waxay u bateen maanta oo fikirin maxaa dhaca oo fikirkooda ka dhex raadiya qofka kale muxuu dhahay muxuu sameeyey iyo orod oo ku jiro oo qofkiiba intuu fadhiisto oo waqti geliyo wixii hadda buuga kala qoraysaa buugga dadka waxay ku qaataa sanado inay buugaag badan akhriyaan waxyaaba badan soo qabtaan laakiin kabar haddaa buugga adoo kasoo fikirin qortid oo buuggaaga successful ma noqonaa maya soo goolkaaga mar walbo orod ha ku gelin example oo kale haddaa examplada qaar kasoo qaadano lifestyle change rabto inaad sameysid ka waran adoo weligaaga qof oo socodka iyo activityga iyo waxaas dhan necab ah hadda orod bilaawdid jilba xanuuna kugu dhacaaban waxa loo dhaho caafimaadka ma u fiicno orodka kooda hore socodka weliba aad ha u badan maalintaas 30 minutes soco maalinta dambe ku dar 40 maalinta dambe 60 saasoo kala sameyn kartaa laakiin haddaad aadid orda ku bilaaba waa daalaya jirkaaga daalaya murqahaaga brush saaraysaa marka dambena waa ka caajisaysaa exampleka labaad dadka inta badan ayadan maanta sameeyaan daayada galayaa dhehaysaa sonkorta jooji kan kale jooji wax kasta jooji hal mar wixii dhan qofka joojinaya jirkiisa dhan show gelinaya jirkana waa very smart jirkii miisaana ka dhacaayo degdeg wax badan isbedela imaanayo qofkii marka waxyar kadib jirkii wuxuu bilaabaya inuu wixii la qabsado qofku wuxuu leeyahay waay 10 kiilo iga dhacday bishii dhaweyd waay iga dhicweysaa deertaan so qofku wuxuu bilaabayaa niyijab inay ku imaato laakiin lifestyle haddaa ka dhigatid small changes inaad sameysid tartiib wax u bedeshid sonkorta meesha goolaheedoo kale haddaa maaragta yareysid tartiib waa soo ilaabaysaa marka dambe inaad goysa imaanayso cuntadaa sameysan jirta sidoo kale adoo waxay dhan bariis baasto wax kasta wada joojin adoo cunaysid in aa wax ka bedeshid marka dambe waa ku guuleysanay qofka waxaa laga yaabaa sanad 2 sano 3 sano inaad ku qaadato laakiin goolkii si fiican u imaado oo la qabsado lifestyle u noqoto laakiin haddii oo maalin kasto orod waxa ku gashid waxa ugu badan oo guuldarada keeno waa fudeedka waxa lagu sameeyo waxyaabaha kuu fududeyn karo markaad rabtid inaad isbedel sameysid maxay yihiin example wax walba rabtid aad qoraysaa sidaana rabaa inaan sameeyo waxaan saddexdan waxaa rabaa example inaan sameeyo weekend waxaa rabaa gym inaan aado gymkii oo kale sida hadda idin dhahay oo kale ha ka bilaabin 5 maalin inaad gym aadid si yaro tartiib ku bilaabaysaa week 2 maalin gym aadaya dietkeyga waxaa rabaa weekend inaa cuntadeyda protein u badnaato sidaan sameeyo kan kale qor waxa aad cunaysa maalintaas iyo gymka maalmaha aad tegaysid maalintaas soconaysid buugaa rabta inaa akhrisid buug qor inaa buug akhrinaysid beri markaan soo kaco saacad hebel buuga akhrinaya saacad hebel gymka tagaya saacad hebel shaqada aadaya saacad hebel waqtiga masiirada markaa qortid waqtigaagi wuxuu ku manage garaysan yahay soo meel oo waqti qaldan maxaa lahayd meel qaldan kaaga baxayo hadda ka hor gabaraa si shaqeynaynay markaasaa waxay u dhahaysaa tuurra isku raaci jirnay anib maanta tuur ma adnaa haa adhaha ready aan iska ahay ma believe plan dhanba noloshayda ma laha haa ayada waxaa ku dhahayaa maalin hebel ma isku raacnaa tuur markaas waxay u dhahaysaa sug let me no kadib waxay sameynaysaa waxay soo bixaysaa calendarkeeda way fiirinaysaa
waxay u dhahaysaa maalin hebel weekendigan maanta markaa weekendiga soo socda waxaas programkaasaa leeyahay maalintaas busy ahay maalintaas ayada dhan waxaa waaye bisha waxaa laga yaabaa inay ugu dhahdo bishaan busy ah laakiin ani markasta ii baahantahay way heli jirtay ani maalintan waa isweydiiyey xas lahay gabadhan waa si shaqaysiin waqtiga saa makaa shaqo badno waqtigaa haysid mid lamidaa heesaa why saan u sameyne like kadib waa fiiriyey waxaa dhahay waqtigeeda wallahi u manage garaysan yahay way ku nasane ayadaa nafteeda u baahan waxyaaba badan ku qabsane laakiin aniga waxaa iska ahay master yaa i wacday meelaba ma aadayna ahaa inta ma aadayna ahaa wallahi isbedel ugu samaysay isbedel ee ugu samaysay so waa inaa dhihi kartaa peace ahay waqti ma haayey waa inaa plaankaaga og tahay laakiin haddaa wax plaana lahayn oo wax qorin oo maalintaas waxaa sameynaysa ogeyn meesha loo socdo walbo adigana waa la socotaa yaa i wacdaa tahay so hadeertaan haddii dhiirigelinta ani nafteeda ka bilaabo idinla qaybsado aniga naftirkeyga waxaa rabaa inaa isbedel sameeyo maxaa dhacay nolosheyda waxyaaba iskaba bedelaa jirta ayaantan so number 1 marka waxyaabaha qorta idinla qaybsana maxaa muhiim ii ah aniga number 1 waxaa priority-ga koowaad markasta siiyaa shaqada ani number 1 muhiim ii tahay maxaa dhacay income-keyga dhan meesha ku xirnaa mise guri kala bixi caafimaadkaaga saa u noolaatid wax kasta waa ogtihiin muhiim waa so shaqada muhiim ii ah shaqadeyda waqtiga galaya dhan waa ogahay alxamdulilah number 2 waxaa qortay hurdadeeda inaan wax ka bedelo hurdadeeda soo shaqadeeda hadeertaan ku xiran tahay shiftiga shaqeeyaa weliba waqtiyo marmar shiftigeyga aad u xun yahay oo ku faraxsanaynaa jiro so waxaa qortay in aan kala hadlo booskeyga shaqada in aan dhib ku qabo oo rabin haddii marka ay socon weyso u arko inay dhibaato igu tahay waxayga hor istaagayso goolkeyga shaqadaas inaa bedelay noqonay waana waxyaabaha oo ku fikiri doono number 3 waxaa qortay lifestyle change inaan sameeyo maxaa dhacay inaa isyara ilaawaa dareemay so inaa isbedel sameeya rabaa see ku sameyn karaa marka waa inaa ogaadaa waxaa waaye waxaa kow idinla soo qaybsanayaa waa inaa ogaadaa problemka intuu ka haystaa nolosheeda intay ka walaaqanta intay wax ka qasan yihiin number 1 waa ogaaday shaqada waaye shaqadeeda markay ku faraxsaneen waxyaaba iga qaldan yihiin waxay saameynay hurdadeeda markay saameyso stress ay u keenaysaa stress iyo hurdo la-aan kadibna lifestyle-kayga saameynaysaa jirkaygu isbedelaa si kastoo cunto maanta xataa asku dhaho heer socon waxaa laga yaabaa inaa waqti u waayo mise haddii xataa cuno hurdadeedaa xun hormoneskayga qalqalaayo maxaa la dhahaya jirka sida la rabay ma u shaqeynayo metabolismkayga waxyaaba badana isbedel iiga imaanaya caafimaadkayga so number 1 waa inaa shaqadeeda saxaa meeshay wax ka qaldan yihiin 2 hurdadeeda saxmayso 3 lifestyle change markaas sameyn karaa laakiin anoo maaragtay basic meeshay wax ka qaldanayeen dhan ogeyn waxaan dhan ma sixi karin true arjeena tas inaas ku raacsana plaankayga marka afraad maxaa waaye waxaa waaye social media baryahan xoogo yar inaan kusoo noqdaa rabaa tiktoka haystaa waxaa haystaa instagram waxaa haystaa youtube laakiin runta idin sheegaa waqti dadka geliya ma ihi oo aada ugu dadaalo maxaa dhacay mar walba aanay shaqadeeda muhiimay ah inaanay injagareeyo inaa faraxsanaa inaa maxaa dhahay inaa social media live habeenkana ku jiro waxaa ka jeclaa walaa Netflix na fiirsado oo relax dareemo ma u hayay maxaa la dhahaa awood ma u lihi inaa maanta dhan xaggaas ku jiro fari ma ogi inaa fiirsada xataa necbahay oo maanta dhan live dad hadlaayaan aa dhegeysto haddaa wax topic very interessant ah oo ani xiiseena ahayn so dhinacaas social media marka ayadan inaa wax ka bedelaa rabaa youtube-ku kale kusoo noqday waqti waa geliyey waa dadaalay iyo xoog badnaanin dadaalkiisana resultiga already waa ujeeda alxamdulilah so number 4 kii igu jirtaa number 5
I don't know why oo soo hormariyay. Number 5 ay igu muhiimsaneyd asdaha social media. Inaan language-kayga wax ka bedelo, inaan luuqadeyda Englishka ma ku fiicni. Marka maaragtay alxamdulillah research akhrisanaayo jaamacad waxyaabo badan oo isbedel sameeyay way jirtaa inaa wax kasta la iifisanayn dhageysan karo fahmaayo research-yada ana akhrisanaayo fahmaayo oo turjumi karo wax ka qori karo laakiin markay noqoto hadal English maaragtay waliba yeah so ugu hadli lahaa og yeah broken English ku hadlaa so waxaan rabaa Englishkayga inaan horumariyo maadaama uu yahay international adduunkana daarabta horumar inaa sameyso business inaa sameyso waxyaabo badan Englishka oo aad muhiim u yahay ayadana number 5 aan geliyay I don't know maybe hadda waqti lagu jiro YouTube-ka xooga saaraya isdhahayaa so plan-kayga marka saas waaye waxaan rajeynayaa idinkana in oo ila soo qaybsatiin ma rabtaa inaa isbedel samaysid jadwal ma samaysatay hore ma u samaysatay ma ku guuldareysatay maxaa sababa in la guuldareysto waxyaabahaasoo dhan topica ku xigo ayaan saan kale tiifiga lamid ahaa aan soo qaadan doonaa haddii idinkana idinka arko inaa aad u xiiseyseen oo igu dhiirigelisiin so waxaan idin dhahayaa dhiirigeli aan ku dhiirigeliyey